مسلمين تسامل يدو حق عد سنة إني سنة عريس لا وكان عن قبل يدد كدي warbaahinta danan ee magaalada Muqdisho ayaa waqti juhdi iyo dadaal ku bixisay sidii wax badan uga ogaan lahayd dhacdada xanuunka badan ee dilka lagu geystay Yaasmiin oo dhawaan lagu dilay gudaha magaalada Muqdisho marka gabadheeda reer banaan ma ahan hooyahani waa hooyada dhashay Yaasmiin ee dilka dhawaan lagu geystay gudaha magaalada Muqdisho iyadoo wajigeeda laga dareemayo murugo iyo waliba calooliyow ay warbaahinta danan waxay uga warbixisay qaabka ay wax u dhacday ahaantii dhibka wuxuu u dhacay aniga horta subaxii jimcaha 2 saac waa maqnaa suuqan aaday gabadhii gurigan degneed oo isheeg aan ku dhaaftay gurigan qolkaan degneed anna qolkaan deganahay marka waxaan la suuqan aadaa baa gabadhii isii fiiri gabadheedii waxay u wardambeysay iyadoo bartaan fadhiso anjeelada cunayso anjeelada kala baraanka siiya xataa waxay dhahday xaxwaaye kulal waa afkii girgiri afkii sida ugu girgiriyo oo macaan waa soo laabana banaanka aadan xuxaa joogtaana hay waaye dhahday ahaantii gabadheedii 3 sano jir ahayd gabar waxay ahayd ilaa hadartan qalbigeyga si aaweyn ee ugu dhax gashay oo hooy macaan misasadan ay soo qabadaan ay soo qabanaysa galaaska tubadaas biyaha iga soo shubi jirtay gabar waxay ahayd horto laga sabri karin ilaahay sabr iimaan Allah iga siiyo hooyahani oo wajigeeda laga dareemayay tiiraayada murugada geerida gabadheeda Yaasmiin ayaa waxaan wax ka weydiinay sida ay wax ku ogaatay dhacdadan ku dhacday gabadheeda Yaasmiin iyo markii ugu dambeysay gabadheeda waxa ay sameeysay anigoo suuqa ka imaado horta waxaan albaabka ka soo galay bartaan ay ugu horimaatay iyadoo xijaabkeeda wadato bartaan ay ugu horimaatay ana albaabka ka soo galaha waxaan dhahay farxiyo gabadheedii aaway ma aragtay Yaasmiin waxay ugu dhaaday gabadhaadii hadda dhow ay taagneed tubadaas agteeda qajacla ayaa biyo ugu shubay meeshii taagneed marka gabadheeda reer banaan ma ahan banaan ma aadi jirin xaafadahan guryaha igu dhow iyo agaarahan ka soo fiiriyay waa gabadheeda waa ka qoostay familkii aan waxaan dhahay gabadheeda maanta anoo suuqa aadaalan ahay bal isoo gaara familkii reer aabeed cid dhareena ay maadeen gabadheedii subaxii 2 saac adiga inta ka soo wareegtay ilaa habeenkii 4 saac waa la raadinaa waa la waayay maalintii sas u dhintay maalin labaad naagtan waa baxday alaabtii adduunyada dharkaas waxa isku qasan iyo rafaadkeedii iyo raashin karsan xataa oo uray jikada way ku jiraan way ka tagtay daawayaal waxa wax la yaabo noqotay in qoys Soomaaliyeed ay dib u geystaan isla qoys kale oo Soomaaliyeed isla markaana aan iska ag dheereen waxaase dhacdo naxdin leh argagax gelisay dadka deegaanka gaar ahaan kuwa ku sugan degmada Yaaqshid ku abuurtay in gabar yar oo saqiir ah in la ceejiyo isla markaana lagu dhexrido god lagu tilmaamay inay tahay suuli isla markaana muddo 14 biri ama 2 isbuuc ku dhawaad ay raadinayeen ehelada wiilasha marka intay fadhiyeen inta marka urkiya ku soo baxa marka waxay reen ilaa adi ciyaal waa iska taqaanta ilaa meesha inaan riixna jirto meeshii riixan cidaan u garaaceen cidaan maamo iyo nin ka soo baxay ka bacdi wiil yar ciyaal ku dhex jiraan ii imaaday sidii aan ku imaaday waa lisoo aan waxaan ahaan intee jirtiin waxaan Tawfiiq joognaa heereen Tawfiiq waxaana gabadh yarta meesha jirta imaada sidii ku imaadeen habeenkii sidii walaalo lagu soo baxshay ilaa muddo nin soo baxshay xitaa waa halkan waa godka lagu riday gabadha isla markaana la ceejiyay iyadoo reerka gabadhaasina ay raadinayeen muddo 2 toddobaad ah kadibna waxa laga helay gabadhii oo surwaal qoorta loogu ceejiyay iyadoo markaasi meed ah waa godkii gabadha yarta oo dhimatay laga soo baxshay halkan waa uu ka furnaay dadka deegaanka hadda xaafadda diriska ah oodan si kiiska dambe oo saxaafadda oo uga dhicin annaga waxaan ka midnahay dadka deegaanka xaafadda deganaay lootadan naga sii jeeda aan deganahay gabadha markay maqnaatay muddo 2 bari aan waxaan go'aansan anagoo diris ahaan inaan wax ka raadino maadaama cunug qof nool ay maqan tahay maalinkii 13aad oo gabadhii aan raadinayno raadiskeedii aan ku maqanahay waxaan la soo sheegay in gabadhii godkan ku jirta iyadoo meed ah hooyahani way sii hadashay waxayna sheegtay in gabadha dilka geysatay markeedii hore lagu xiray xarunta dambi baarista CID muddo 15 biri ay ku xirnad waa sida ay sheegtay kadibna waxa fududeeyay in xabsiga laga sii daayo shakhsi ay magaciisa ku sheegtay Cabdi Casiis oo ka tirsan
hay-adda dambi baarista ee CID. gabadheeda horta si naxariis daro loo dilay haddana oo CID-da iyo waxa warqadii aan cadeynta aan geystay iyo markhaatiga nin Cabdicasiis la dhahayo meesha waxa ku qaatay amana sida laaluushe gabadhii markii aan soo xirtay oo markhaatida aan u keenay maxkamadda markii aanay wuxuu dhahay gabadhan wax cadeyn ee lagu hayo markhaatiga aan u geeyo beeniyay Cabdicasiis ninka la dhahayo gabadhii marka sidaas ayaa uu ku deeyay hooyahani oo hooyo dhibana ah ayaa waxa ay ka dalbanaysaa madaxda ugu sareysa dalka sida madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre in arrintan ay soo fargeliyaan isla markaana ay wax ka qabtaan waxayna tilmaamtay in gabadheeda Yaasmiin ay u baahan tahay cadaalad. Yaasmiin markii sabar iman Allah naga sii gacan ka xaqtarana dishay gacantaas waxa u baahanaa dawladda madaxweynaha farmaajo waxaan u baahanahay inuu iyo ra'iisul wasaaraha Cali Kheyre iyo waxaan u baahanahay hay'adaha iyo inay wax ka qabtaan gacan ku dhigiladaas ee gabadheeda ku sababsatay. daawadayaal waa dhacdo xanuun badan isla markaana ka dhacda xaafadda Iftiin ee degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir in gabar yar oo 3 sano jir ah isla markaana adduunyada ku cusub in god boosaneera la geliyo isla markaana lagu cijiyo waxa sameey kara qof bini'aadanimada waxba ka aqoon iyadoo loo baahan yahay hay'adaha amniga ee dawladda Soomaaliya arrintan ay soo farageliyaan isla markaana ay wax ka qabtaan dhacdadan xanuunka badan ee ka dhacday degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir. Cabduqaadir Sheekh Cabdullaahi Maxamed warbaahinta danan xaafadda Iftiin degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir.